jiro qof ku fikiraya in xaafadda Port Royal ee dalka Jamaica oo ah meel xasiloon oo laga kululeysto ay mar ahaan jirtay goob caan ka ah dunida inteeda kale ilaa heer dadka qaar ay ku tilmaamaan inay ahayd magaaladii ugu sharta badneed ee adduunka. ugu dambeyn waxaa liqay biyaha badda taariikhdana isbedel abid ayaa ku yimid 20kii bishii January ee lasoo dhaafay. shacabka Jamaica waxay arkeen arrin aysan u maleynayn in goobjoog u noqon doonaan weligood. markii ugu horeysay muddo 40 sano ah waxaa tekada taariikhiga ah ee Port Royal ku taala caasimadda waddankaasi kusoo xirtay markab dalxiisayaal wada. waxaa halkaasi laga dhisay goob ay kusoo degi karaan ilaa 2,000 oo ruux oo la socday markabkaasi lagu magacaabayay Marella Discovery 2. dhacdadaasi waxay shaki la'aan farxad gelisay guud ahaan dadka reer Jamaica. booqashada dalxiisayaasha waxay bog cusub u furtay taariikhda tekadaas. waxay Port Royal leedahay sheeko ay wada yaqaanaan dadka u dhashay waddankaasi iyo kuwa kale ka baxsan ee xuduudahooda. goobtan oo hadda si nabad ah loogu kululeysto waxay soo martay dhacdo xanuun badan iyo waayo lama iloobaan ah oo kasii horeeyay markii ay gumeystihii Ingiriiska goobtaasi ka qabsadeen ciidamadii Spain ee maamuli jiray 150 sano. waxay noqotay meel muhiim ah maadaama ay xilligaasi dad badan ku nooleen aagaasi. maamulkii Ingiriiska waxay ka qasbanaadeen inay garab weydiistaan kooxo burcadbadeed ah oo ka qooleysan jiray xeebaha. ujeedka ay isu bahaysanayeen waxay ahayd inay ka difaacaan cadow kasta oo banaanka uga yimaada. isla markii ay midoobeen Ingiriiska iyo kooxihii burcadbadeedka waxaa isbedelay nidaamkii magaalada waxayna noqotay meel aan la xakameyn karin. inkastoo ganacsigeeda uu heer sare gaaray haddana waxaa kusoo batay ficilada xunxun sida isticmaalka daroogada iyo galmada xad-dhaafka ah. sidoo kale waxay soo jiidatay dalxiisayaal ugu imaanayay meelo kala duwan. waqti kooban gudihiisa waxaa magaalada loogu dhisay hoteelo lagu cabo qamriga iyo goobo lagu ciyaaro. dadka taariikhyahanada ah waxay sheegeen inay tiro ahaan isla ekaayeen goobaha lagu dalxiiso, kuwa maandooriyaha lagu iibiyo iyo kaniisadaha. Peter Gordon oo ah khabiir ku xeel dheer taariikhda oo degan meel u dhow xeebtaasi ayaa yiri burcadbadeedaasi waxay xor u ahaayeen inay sameeyaan wax kasta oo maskaxdooda kusoo dhaca maadaama loo aqoonsanaa inay ahaayeen ciidan ilaaliya Jamaica. maamulka waddanka ka jiray waddo kale uma furnayn oo aan ka ahayn inay faraha ka qaadaan. Gordon wuxuu intaasi ku daray waad qiyaasi kartaa waxa dhici kara markii magaalo uu dahab ka buuxo ay soo galaan rag awood ku leh oo wax kasta ay doonaan sameyn karaan. laakiin subaxnimadii ay taariikhdu ku beegneed 7 bishii Juun ee sanadii 1692 xaaladaasi way isbedeshay gebi ahaanba. waxaa sidoo kale isbedelay wejiga ay lahayd magaalo xeebeedka Port Royal. dhulgariir aad u weyn ayaa ku dhacay magaalada kaasoo burburiyay inteeda badan sidoo kalena dilay 2,000 oo ka mid ah dadkii ku sugnaa halkaas. xilligaasi wixii ka dambeeyay Port Royal weligeed uma ekaanin sidii u ekaan jirtay. dhulgariirku wuxuu baabi'iyay qaybtii ugu weyneed magaalada oo ah dhul ku fadhiyay 52 acres oo ah cabirka dhulka lagu qiyaaso kaasoo ah ku dhawaad 3 meelood 2 ka mid ah baaxadda magaalada. qaybtii burburtana waxaa liqay biyaha badda. qof walba oo doonaya inuu soo arko burburka magaaladaasi iyo biyaha hoostiisa ku jira waa inuu fasax ka qaato dowladda Jamaica. hadda goobtan waxay qarka u saaran tahay in lagu daro liiska goobaha taariikhiga ah ee ay diiwaan geliso hay-addan UNESCO. hase yeeshee taariikhda madow ee magaaladani ee ku nahayd ganacsiga dadka madow ayaa jahwareer ku abuura dadka reer Jamaica ee maanta jooga. sidaas darteed magaaladani waxaa loogu magac daray magaaladii ugu sharta badneed ee adduunka iyadoo ku kasbatay kufsi, dil, dhac iyo gumeysi.